shacabweynaha deegaanka Hiririda ayaa qabtay xaflad siyaarsar ay u soo agaasimeen ay ku weyneynayaan xuska maalinta Cashuura oo ku beegan sanadka cusub ee 1444 haddaba shacabka qaybihiisa kala duwan ee deegaanka Hiririda ayaa iskugu soo baxay gudaha caasimadda deegaanka Hiririda ee magaalada Harar iyagoona soo bandhigay agab dhaqameedyo kala duwan iyo sidoo kale ciyaar dhaqameedyada u gaarka ah deegaanka Hiririda بسم الله الرحمن الرحيم magacayga waxa la yiraahdaa Cabdi Ismaaciil waa ku xigeenkii dhaqanka Hiirdaha waana hay markaas sidaa daraadeed maanta munaasabadu waxay ahayd waa maalintii Cashuura ahayd waa bishii sanadkii 1444 taasay ahayd taariikhdu marka mar walba xafladan oo kale waxa la qabtaa bisha koowaad sida tirada muslimka hijrada markaas la qabtaa iyadoo 10keedii baa la qabtaa xafladaas waxa jira waxa lagu ciyaar baa jira ciyaarta ka soqona waxa jira dhaqanna kala duwan baa jira sida Hiririda loo yaqaan dhaqankaas oo kamid ah hadeer dumarku ay ciyaarayaan ciyaarta dumarka iyo waxa la yiraahdo cunto oo shuuro la yiraahdo oo inta la bisleeyo subag lagu daro dhalinyaraduna way cunaysaa dadkuna way wada cunayaan waxa wada cunaya dadka magaaladan ku wada nool iyo nawaaxigeeda dadka ku wada nool iyagu aan qofna la kala soocin bay wada cunayaan marka ka bacdina waxa cunaya waraabaha inta subag lagu daro marka waraabuhuna ujeedadu waxay tahay in waraabaha loo cunsiyo magaalada dad way wada jecel dadka iska daahe حتى ورابهانا نور الوداج كران نورشة يجو أنا وحبك كلا كمان ميلها كلا وحلو يا ورابها إنه دد عنو أما حيوان كحولها عنو لكن سما قالها ده أمر كوي ما دو عرنتي سورابر نبدو يسكت دايا وحدتك ولد أغما سيدي دد قف أو كلا ورابها تركيزا يسوق أنتو كذود أنتو صوت بالفورو oo hilibka ka qaadanaya waxaad i afsiiso gacanta aad ku siinaysaa meelaha kale waxa loo yaqaan waraabaha kii dadka cuni jiray way fog tahay taariikhdu way fog tahay marka sidaa daraadeed waxa loo baahan yahay cadde ujeedadu in dadka magaaladan dad iswada jecel irintaas rabay in dadka loo ogeysiiyo سيدا دراديد باواح laga dhigay maalintaas maalin xaflada oo dadka intay soo wada ignaadeen ay waa loo wada dhigay sida daraadeed ay baa xaflada loo dhigay caan bay ku tahay magaaladan marka mid labaadna UNESCO baa la rabaa in la diiwaan galiyo sidii hadda ku hor shawaal oo kale petition baa jira petition kaas waxay dhigeen heer ahaan sidii shawaalka oo kale waxa la rabay in loo dhigo ayma fara badan bay ahayd sidaa daraadeed haddii intaas la buuxiyo waa la diiwaan galin karaa haddaan la buuxin lama diiwaan galin karo waxba kama dhimna maalinta raggii intay daawadaan shuruudda iyagu ay dhigeen baa jira shuruuddaas ma buuxaan mise way ka dhiman tahay anagu waxaan ugu talagahaysaa xafiiska iyaga inay arintaas buuxsanaato community-guna intuu ka qayb galo dadka kale intay qowmiyadaha kale inay ka qayb galaan ayaan u talagalay odayaasha dhalinyarada dumarka wax walba meesha intay ka soo qayb galeen ee ciyaartaas sidaa daraadeed waxaan rajaynaynaa in la diiwaan galiyo shuruudana laga aqbalo saasaan u bareynayay maasan عبد الحميد محمد ورركي تلفزيون جوجل تي في حرر